saaxiib yaal xalay kulankii semifinalka lugtii ugu dambeysay Barcelona iyo Inter Milan war weyn ayaa kasoo kordhayo xili ay Barcelona gabi ahaanba laga takhalusina macnaha waa laga tirtirayaa aaminsanaanta ay aaminsanayeen xagaagan in saddex lay koob ee isku qaadayso walow Hansi Flick uu bidaasay hore uu sameeyay oo uu ku sameeyay Bayern Munich ayuu sidaas ugu sameeyay balse tan ayuu rabo Barcelona ugu sameeyay laakiin tan hadda waa laga soo diiday xitaa waxa qiilqiil ugu jirtaa in La Liga xitaa ay waayaan dadkan Barcelona waxaa helay niman oo macangagiin ah niman oo macnaha weerar yaqaana difaacashana yaqaana ayay heleen walow xalay xogo yar isku wareereen Inter Milan marka laga soo bilaabo group stage-ka Inter Milan shub ayay aheeday dadkan waa loo shakinay in finalka imaana waa loo shakinay walow Barcelona iska bobooteenaysa dhahaysay xitaa Lamine Yamal dhahaye ana waxaan soo garaacnay Real Madrid 2 mar 3 mar Super Cup iyo Copa del Rey ayaan ka soo qaadnay marka aniga waxbana lama ahan camalna wixii imaanaha imaado balse xalay oohin ayaa laga keenay laga keenay xilli xitaa Rafinha ma naftirkiisa uu ooyay suxun ayuu ooy macnaha adagoo 3 gool iyo 2 leh oo laga soo bareejiya dan lagu saariyo wax ka xanuun badan male sidaas uu uga haray finalka Champions League waxa dadkan ugu dambeysay finalka ay imaadaan sida camal 2015 ayaa ugu dambeysay Barcelona xilli goalkeeper Inter Milan uu qaatay man of the match oo uu save gareeyay ama uu badbaadin uu sameeyay 14 mar ayuu badbaadin ayuu sameeyay ka badan uu sameyn karaa ninkan wuxuu ku fadhiyaa oo lagu soo wareegay oo macnaha lagu soo gatay 5 milyan kaliya lagu soo gatay xilli Andre Onana horay goalkeeper Inter Milan oo hayna lagu soo gatay 50 milyan uu ku fadhiyaa balse ninkan ayaa hadalhaynta ugu badan oo baraha bulshada la wareegaya oo intaas mar uu badbaadiyay Lamine Yamal ayaa macnaha ciyaartan jikatoor ka ahaayay waa loo digay horta ciyaarta inta aysan bilaabanin ka hor waxaa la dhahay anaga waxaan ku reebeynaa 3 qof ayaan ku reebeynaa tii ayaa dhacday marka xogaho Lamine Yamal inkastoo uu birta u qaraacay goalkeeper uu dalqada uu ka galin lahay laakiin Boltieri uu badbaadiyay sidoo kale Pedri wuxuu dhahay anaga tan xalay waan alqiyaanay oo referee ayaa nagu taagnaaye oo kan ayuu ahaaye balse midaas mid u raacanaysa male mar haddii gurigaaga lagu diray waa macnaha qofku dhageysanaya malahan marka Lamine Yamal tan camal way dhici kartaa xitaa xilli Lionel Messi uu joogay koronka sida camal way dhici jirtay in laga reebo oo qartaad ay ku soo bixi